jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan Puntland gaar ahaan magaalada Qardho ayaa kulan casho isugu yimaadeen waxayna taageero iyo soo dhaweyn ugu muujiyeen madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar haween dhalinyaro qaar kamid ah mas'uuliyiinta jaaliyada ayaa kulankan ka soo qayb galay kana hadlay intii uu socday waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ayagoo u diray hadallo badan dardaaran Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Turaabi oo ugu horeyntii ka hadlay goobta ayaa sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub aad baan soo dhaweynaa Mustafa Maxamed Cumar Dubad isbedelada uu sameeyay oo faraha badan oo aan la soo koobi karin oo soo dhaweynayna dawladdiisu waxay jirtaa bil iyo usbuuc ama bil iyo laba usbuuc haddana waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo ay dhammaan Soomaalidu ku diirsadeen ayuu sameysay haddii aan nahay community ku dhaqan Puntland khaasatan gobolka Karkaar xaruntiisa magaalada Qardho oo ah xarunta dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ee boqortooyada waxa aan sheegaynaa in oo aan salaamayna oo maxaan ku soo dhaweynaa in fara badan dadka ku nool halkaas inay yihiin dad wadankoodii oo kala jooga marka dhammaan waxaan u mahad celinayaa dawladda Puntland laga soo bilaabo madaxweynaha labada gole iyo dhammaan maxaan ku raadayay shacabka reer Puntland oo dhan qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay oo rag iyo dumar isugu jiray ayaa ka hadlay goobta intii ay socotay munaasabadan xafladda meesha lagu qabanay waxa weeyaan xaflad lagu taageerayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Cumar marka waxaan leenahay insha Allah xilka Allah ku star mudane madaxweyne aad iyo aad si fiican oo ugu taageersan meel walba Soomaaliya degan tahay dowladda Soomaalida Itoobiya waxa leeyahay guud ahaan idinkoo isku duuban waa aragtay mar 10 badan badbaratan 2 bilood gudahood ama bilyan badbalaas waxa leeyahay mid noqda isku tashada waa salaamaya halka waa ka salaamaya waxaan ku leeyahay guul iyo gobonimo waxaan ku leeyahay dadkaaga shacabka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya madaxweyne soo dhaw insha Allah waxaan rajaynaynaa madaxweynihii aad iyo aad wadanka u anfacay dadka anfacay diinta anfacay insha Allah inaan noqoto aad baan kugu faraxsanahay mudane madaxweyne Maxamed Axmed Nuur Xamari oo kamid ah mas'uuliyiinta jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida ee Puntland ayaa gabagabadii bogaadiyay isbedelka ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay isbedel waxa ka dhacay in dadkii loo fasaxay xorriyatul qowlka oo qofku wuxuu doono oo markaas ka guuxaya maankiisa uu ka hadli karo waxa ka dhacay isbedel runtii aad iyo aad loogu farxay oo Soomaali meel ay joogtaba aad iyo aad ugu riyaaqeen waxa kamid ah in dib loo soo celiyay calankii lahaa xidigta dhaxda ku lahaa ee muujinayay astaantana u ahaa in Soomaali meel kasta ay ku nooshahay hadday ku nooshahay NFD hadday ku nooshahay jamhuuriyadda hadda joogno Soomaaliya hadday ku nooshahay Soomaali galbeed hadday degan yihiin Djibouti dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan inay yihiin dad walaalo ah oo wadaaga wax kasta af iyo luqad iyo diin iyo jinsiyad sida darteed madaxweynuhu soo arinta eegaya ayuu wuxuu dib u soo celiyay calankii xidigta dhaxda ku lahaa waxa kale oo madaxweynuhu uu si degdeg ah wax uga qabtay xorriyatul qowl in dadka loo fasaxo inay hadlaan qofka bini'aadamka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu karaamay qofka in la yiraahdo waa la caburinaya ama ma hadli karo wax ka xun ma jiraan intii ay socotay xafladda waxay muujiyeen fantasiyo iyo damaashaad ay si weyn ugu soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka